waxaa dhacday marka inaan wada fariisano meeshii aan maaragtay kafay iyo wax ku cabno sax kulankeena u horreeyay si fiican ay isoo dhaweysay si maxabba leh oo macnaha qof maanta dareen kuu haayo kale waa dareemaysaa soo maaha soo kuu soo dhaweyn lahaa kale weji furan weji furan qalbi furan inaad ku faraxsan tahay inay ku aragtay nafteeda waa ka dareemaysaa macnaha soo waxaa dhacday marka in kulankeenii ugu horreysay qurux badan noogu soo dhammaaday anigana aad maaragtay dee u bogaadiyey ugu farxay sax soo waxaa dhacday marka inaan kala tagno waa soo wacaynaa marka anigu aan maaragtay dee magaaladii iska galay ileen meeshii markay ehel iyo dad baa joogo wixii aan ku mashquulay marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah xilli habeen ah inay soo wacdo dhahdo ilaa waa inaan is aragnaa mar kale kulan kale sax waa ka aqbalay anigu markaas waxaan la joogay dad dhalinyaro asxaab aan la joogay meeshana aad ma u kala aqaano marka waxaa igu dhacday yar inaan wiil dhalinyaro asxaab nahay meesha aan iska baranay aan dhaho nin gabar saasaa jirto aan uga sheekeeyey qisadii oo dhibkaasoo dhan aan soo martuu yidhi waxaa idhi adigu ma fahmi kartid micnaha qofka markuuna maarata jacayl ku dhicin ma dareemi karo soo maaha sax waxa micnaha adigu kugu jiro wuxuu u malayaa khiyaali iyo inaa micnaha wax been ka sheekeynaysid sax wuu kuu malayaa يعني waxa uu sheekaysay in jacaylkan uu ka abuurmay idinku kala wada joogtiin oo hadana ayad darteed u joogtiin uu aamini waayo marka ونيهم مسافadaas dheer miya darteed u soo martuu yiri waxa ay maanta nafsadeeda xataa haday dhiileed maanta nafsadaada u baahanaha waa siin lahaa yiraahdo awoodo sax soo waxa dhacday marka in jarka aan dhahniyo meesha ma kala aqaanay waa in ay raacdaa sax ilaa meesha waa ku cusbaha waxa joogaba waqti iska yar waa sax maalmo waa soo uu iga aqbalay waxa dhacday in meeshii aan ka baxno marka waxay igu tiri meel iskuul ayada waxa jirtay marka computer iyo waxaas ay ka baran jirtay marka waxay tiri iskuulkaas aan joogaa igu imo meeshii aan ka tagnay abaar markaan soconay meesha aad u dheertaa waxa irniyo meesha ma dhowdaha marka asagu wuxuu igu dhahayaa way dhowdaha waatana haba macnaha markaan sii socono kale waa weydiinaya ilaa meesha ma kala aqaan anigu sax soo ugu dambeyn meeshii iskuulkii aan u geeyey marka waa soo raacnay dhaxda anagoo ku sheekaysanayno marka waxay dhahday meesha maada kala aqoon yaa ku soo kaxiyay maskaliga caawa meesha soo yani waa la kulantay bay ku arkay iska baxay adoo wali si toos ah ku arkay ayda gabadha bay iskuulku waa kan ku dhahay uu ka laabtay iskuulku waa kan uu ii tilmaamay asaga bis meesha istaaga waa wacay waa joogaan iri way timid marka asagoo saaxiib waxa yiraahdo amaasanta iska bax uu tagay soo markay ii timid waxay ku tiri meeshaan ma wada aqoonin yaa ku soo tilmaamay markaas ay yar dhalinyaro asxaabnaha ay waday ma garatay sax soo hadda ma aaway waxay tiri ma kula socdaa may waxa inuu iska baxay abaar markaan soo soconno marka meel dhagaxaan taala camal aan marayni yaraa meesha fadhiyay marka waxay u malaysay inuu asaga yahay waxay dhahday wiilku waaba kanay maxaa dhahday ugu baxay sax saa'irin ma aha xilli habeenna way ahayd ugu tagay yarka anaa ka hubo sax maxaa waxay iri aniga macnaha shaki ma kugu abuurmaa iri kaas tiri maya hadana macnaha aniga waxaan ka dareemay in xoogaa shaki wax galay ama shirqool iyo wax ugu mareegaya camal sax iska dhaadhicisay ragle wala ma amri karo marka annaga u cadeeyay waxaa iri caadi way labadeena nahay wax naga qaldan ma laha aniga waan aaminsanta aniga ka aaminsana soo waxa ka baqdid meesha ma yaalaan sax marka waa soo wada raacnay xaafadeeda agteeda markaa marayno runtii waxaa jira erey ay aad maaragtay ilaa hadda ii taabto ay igu tiri laabta ii gelisay kadib waxay igu tiri macaanan weliga ha iga fogaanin ereygaas runtii wax loo dhigay la jirin sax ereygaas runtii aad maaragtay xasuustayda xataa ilaa hadda aana ka go'in mar walba inuu isoo laabto leen waa fahmi kartaa qof dee jacayl markuu dhaba uu galo waa ka dareemay waa ka dareemaysaa hadaladan aad naftaa jacaylka u haysid oo kale waa kaaga duwan yihiin hadal caadi lagu dhahay hadal caadi lii dhahay hadal qof aad jeceshahay qalbiga ka soo go'ay soo waxaa dhacday in markay saas igu tiri in aan aad u qiiroodo runtii oo ma iga tegi rataa camal micnaha wax erayo saasaan ku dhahay markaasay igu tiri maya laakiin adiga waxaan kuu sheegayaa inaadan iga fogaanin ereyga micnaha saas ay dhahday iga fogaanin weliga ereygaas micnaha wax weyn ila noqday adaa shaki kusii galaba waa idan fogaano taas tiri marka waxaa dhacday
markay saas igu tiri waxaan iri adduunka haddii la nool yahay dee calaf aan isku leenahay sax waa ishantinaynaa so waxbaa ka walwalin anina waa wad joogaa meeshaanna kama tagaan iri meeshaan waxaa muhiimadda u imidna adi dartaa waa maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday marka aniga markaan soo kala tagnay habeenkii xilli habeenay ahayd xillin maalin marka fariin ii soo qortay fariinta markaa eega waxay igu tiri waa la ii soo doontay qof ehel ah maaragtay waa ii soo doontay igu tiri isla waqtigii marka maalin habeenay soo maalinkeedii baa micnaha fariintaas ii soo qortay waa la ii soo doontay fariin micnaha emoji oo micnaha iliniya camal oo emoji maaragtay waxaa jiro oohin camal ah oo la socoto bay ii soo qortay fariintii aad bay aniga ula cajabay waxaa iri see ku dhici kartaa macquulba maahay adi soo familka ma kala dhicsaa in qof la socotid see tiri may uma sheegin laakiin haddii aan u sheego xataa cid i dhegaysanaysa ma laha waayo aniga familka aniga hadalkay waxba lagama soo qaadayaba arrintaasaa dhacday habarartay wiilow dhalay aa i soo doontay bay igu tiri habarartay wiil ay dhashay wiil ay dhashay aa i soo doontay igu tiri sax so aniga waa aamini waay see macquul ku noqotaa iri familkaaga umaada sheegin miya adi inuu xiro naga dhexay inaan dartaa waxaasoo dhan usoo maray in aan dartaa maaragtay meel dheer kaaga imaaday si maaragtay adiga aan ku hantiyo oo nolol aan u dhisanno sax waxay igu tiri haddaan u sheega xataa familkayga cid iga dhegaysanaysa ma lahan oo micnaha hadalkaygaba lama qiimeynayo qof micnaha iska hadlayoo kale cawana laga soo qaadaa inay familkeeday taqaanayada okay soo saasay igu tiri masaasaan idhi waa yahay aniga arrintii madaxa i weynaaday dee waa fahmi kartaa qofuu jecel yahay waa lagu yiri maanta waa lasoo doontay dee murug kaaga weyn maba jirtaba sax murug aad aan u dareemay runtii murug xanuun badan maalinkii oo dhan waa iska fikiraa keligii inta meel fariistay maxaa samaysaa maxaa maanta ku dhaqaaqdaa oo nin ragaa tahay ilaan go'aana la qaataa soo maa sax maxaa samayn kartaa maanta gabadhan aad u samayn kartaa dartii waayo dhibaatadaanay maanta ku jirtaa soo qofkaana dee anaa jecel inaa waaye ma rabo sax marka waxaa dhacday in wiilkay habararteed wiilkay dhashay in micnaha ayada micnaha raalli kama ahayn lama su'aalinba lama dhihin miyaa wiilkan ma rabtaa oo wada sheekaysta xataa micnaha labada qof intayna isguursan waxaa jiro waddo la soo maro labada qof horta marka hore waa inay wada sheekaystaan issoo fahmaan kadib maya dadka yani faamilada kala sharci ah kuwana ayagoo isweydiinanaysa siiya kuwana at least waaye reer magaalo ahoo horta inaad isfahmi karta isfiiriyaa la dhahaa marka ayada lagalama tashan ayaga lalama tashanaba su'aalba lama weydiininba keliya reer kale go'aanka gaara bis sax